السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadkana daawanaya oo dhan waxa caawa dhammaanteen sharaf noo ah in bahda baraarug library nagu soo casuumaan inaan kulankan qabanno kulankanna wuxuu noqon doonaa mid ka duwan kulamadii hore sanadka hore aan qabannay xasan mudane iyo professor doodishe ay soo qaban qaabiyeen kan wuxuu ahaan doonaa kulan wada sheekaysi ah sida loo qorsheeyey muddo 60 daqiiqaan marka hore anigii professorka wada sheekaysan doonaa wax isweydiin doonaa kadibna waxaan u furi doonaa qadadka dadka nagula jira si ay su'aalo u weydiiyaan professor cali jimcaale wixii su'aalaha ay qabaan marka hore intaan barnaamijka u guda gelin waxaan rabaa inaan idiin soo koobo taariikhda nololeed waxbarasho professor cali jimcaale axmed allah u naxariistay professor saciid samatar ayaa joornaalkii Horn of Africa markuu qori jiray meel badan ka sheegaa ayaa wuxuu oran jiray markuu dadka soo tiriyo joornaalka wax ku qoray markuu isaga isu keeno wuxuu oran jiray saciid samatar needs no introduction oo uu la jeedo saciid samatar hore u taqaaneen wax uu iska sheegay ma jiro because waa joornaalka editorkiisi marka professor cali jimcaale uma baahno introduction professor weyn safka hore kaga jira daraasadda cilmi baarista guud ahaan Afrika iyo gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya ayuu yahay professor cali jimcaale wuxuu wax ku bartay Soomaaliya iyo Mareykanka labadaba macallin oo ahaan jiray Soomaaliya kadibna Mareykanka uu tagay PhD ka sameeyay macallin ka noqday comparative literature ayuu takhasuskiisu yahay isbarbardhigga suugaanta waana cilmi guud ahaan soo koobaya anthropology political science history wixii oo dhan oo la isku soo wada lifaaqay marka wax badanaan caawa ka faa'iidi doonaa professor cali jimcaale waa professor si gaar ah wax ugu qora fiction iyo non fiction labadaba waana wax naadir ah laftirkeeda oo u baahan inaan wax laga barto sida ay ku dhacday marka professor jimcaale wuxuu edit gareeyay taftiray buugaag fara badan wuxuuna qoray buugaag kale ama wax lala qorayba marka haddana wuxuu ku howlan yahay weli qoraalka buugaagtaas qaarkoodna uu ku dhex jiro sanadaha soo socdana soo bixi doonaan marka kuwii hore iyo kuwa hadda uu soo wadaba waan kala munaaqishoon doonaa waxaan rabaa inaan wada sheekaysigeena ku bilaabo professor cali soo dhawow si fiican waa ii maqashaan u malaynaa نعم واكو مقلا مهدسند محمد وادوه ها واسكول انها بروفيسور waxaan rabaa professor cali jimcaale sidii caadiga aba qof walba oo adduunka cilmi doon ah ama cilmi raadinaya arday badan iyo dad badan aan ula jira caawa oo intellectual iyo scholar intaba isugu jira iyo macallimiin jaamacadeed iyo kuwa jaamacada dhigta iyo kuwa cilmiga jecel inaan mar walba ka bilowno ku weydiiyo bal geedigii noloshaada socdaalkaadii iyo safarkaagii aad ku soo gaartay meesha aad ka soo bilowday tacliinta iyo waxbarashada marar badan buugaagtaada waxaan ka akhriyay khaasatan Daybreak Sneer oo kale deegaankii iyo dadkii aad ku soo dhex barbaartay caa'iladaadii qaraabadaadii dadkii aad ku soo dhex kacantay kuwaasoo dabcan annaga dhanba nagu leh saameyn qof walba oo saameeya noloshiisa dambe iyo fikirkiisa iyo sida wax u curinayo wax u qorayo ama wax u cilmiyeynayo marka without much cadow anoo aad ugu sii dheeraan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal geedigaas meesha aad ka soo bilowday Daybreak waxaad ka hadashay hooyadaayo kala saameyn inay kugu lahayd qof suugaanta taqaana ay ahayd suugaanteeda aad kororsan jirtay marar badan cilmi baaristaada iyo qoraalladaada scholarligana waxaa ka muuqda maymuun biyow abwaanadii weyneed shabeellada dhexe adoo xiganay dhowr mar aadaan naftarkeyga ii jeclaysiisay inaan suugaanteeda bal sii baaro sii ogaado waayo hore 10 sano ka hor markaan aqrinayay waxeeda markaad sheegayso khaasatan say wax u abaari jirto bal ayadana dib dambaan wax kaa weydiin doonaa wixii aad kala kulantay raadinta wax soo saarkeedii maymuun biyow laakiin bal marka hore nooga waran qoyskaagii aad ka dhex dhalatay iyo sidii aad halgankii aad bal soo meesha ka soo bilowday si dad badan kugu daydaan jidkaagii loo raaco loo ogaado bal caqabadihii aad la soo kulantay iyo wanaagii iyo fursadihii aad haysatay hadda maanta ma jiraan laakiin inay inta hore ka adkaayeen inay ka sahlanaayeen 21st century marka taasaan rabaa marka hore inaan noogu bilowdo professor wada sheekaysigeena aan ka bilowno
نعم وما هتسنتهي محمد أستاذ محمد وما هتسنتهي رنتي حسن مداني iyo kooxda Baraarugu Library runtii aad u mahadsan yihiin oo aan u arkayo weliba hadhowtina malaha aan ka hadli doono haddii aan la idmo Professor Ingiriis iyo anigaba in runtii ay abaabuleen wax aan ku magacaabi karo virtual nation oo aan awal meesha jirinba yani marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mar labaad dhammaantiin inta na maqlaysa iyo inta maxay hayto na arkaysa salaamullaah calaykum runtii waxaan horta ku bilaabi lahaa ustaad maxamedow waatan dhimasho iyo geeri badan Soomaaliya ay ka dhacday maalmihii u dambeeyey khaasatan marka la yiraahdo madaxweynihii hore Allah u naxariistay Ali Mahdi maxay hayto Maxamed iyo maxay hayto Janaal Axmed Jaamac xildhibaanadii koonfur galbeed oo maalin dhaweeto annagoo sheekaysanayna Dr. Ingiriis wuxuu ugu yiri guri ayan taaban dhimashadaanu geerida ahay ma jiro marka hore waxaan ku bilaabi lahaa runtii oo weliba wiil aan abto ah oo isaguna maalin dhaweeto dhintay Allah u naxariisto ninaan saaxiib ahayn oo taqaatiirta runtii qaaxada daaweeya Soomaaliya Haydar Ali Raagalira isaguna oo dhintay marka waxaan runtii ku bilaabi lahaa anoo intaasoo dhan og madashaanu in hadhow marka intaan la kala teginba in wixii geeridu waa xaqe in faataxada loo maro aakhirka dambe in ilaahay jannatul firdaws uu ka wada waraabiyo annagana iyo reerkoodii samri iimaan ka siiyo taas horta waa taas Professor Ingiriis su'aal waa muhiim runtii su'aasha aad weydiisay waana runo waxay wax kastaba marka horeba manbaci hore yay ku noqonayaan aakhirka dambe anigu waxaan ku dhashay xamar meel maxay hayto la yiraahdo Yaaqshiid marka waxaad bilowgii horeba nasiib waxaan u lahaa waxaa jiray nin annagoo dhan noo weynaa gabaraa ka weyneed laakiin reerka isagaa runtii muxuu ahaa udub dhexaad u ahaa oo aqoon-yahanadii berigaa jiray ay u ahaa runtii inta tirsan oo Soomaaliya inta berigaa laga yaqaan oo saaxiib sokeeyana ay ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde Allah u naxariistay marka waxa uu samayn jiraa waxay ahayd waxbarashada in xoog la saaro yani waxyaabaha runtii markaan hadda xasuusto iga yaabiya yaa waxay tahay qolooyin maxay hayto Talyaanigu wax ku akhrin jiray inta badan markaasaan waxaan xusuustaa isaga oo runtii ka hadlaaya qorayaashii waaweynaa ee Talyaaniga oo beriga iyo maxay hayto xarakaadkii Itaaliya ka jiray ama suugaaneed ama xataa tan cilmiga ah oo scientificada ah waxaan marka xusuustaa waa berigaas yani ajaa'ibka noloshu marmaray duruufta un ku saacidaa oo yani nasiib ilaahi amarkii wax ku waafajiya waxa uu subscription noogu sameeyey aniga iigu sameeyey runtii joornaalada Kenya ka soo baxa oo Sunday Times-ka iyo maxay ahayto Daily Nation hadda waa beri hore oo elementaro kale aan ahay runtii waxa marka nagu khasbi jiray oo gadaal dambaad kolley ka fahamtaa wanaag inay ahay laakiin markaad canug yar tahay waxaad u arkaysaa wax badan oo culeesaho lagu saaray waxaan xusuustaa isagoo yiraahda ha seexan ilaa aad ka akhriso 50 page habeen kasta waa habeen kasta 50 page adigoon akhrin ha seexan marka waxa uu nageliyay fikir ahayd waatan Soomaalidu tiraa ruuxba wuxuu cuno ayuu ciidamaa wuxuu na dhihi jiray ruuxba wuxuu akhriyo ayuu ciidamaa oo akhrintaasan marka ku soo barbaaray kadib waxaan galay dugsigii
shibis la dhihi jiray shibis runtii macallimiin aad u fiican yani waayaha beriga yaan ka hadlaynaa macallimiin runtii cajaayib ah oo ay ku jiraan ama carab ha noqdeen oo bannaanka ka yimid ama soomaali ha noqdeen ama haddii alla ku roon yahay maraykan ha noqdeen lannu waxa galaaska afraad markaan ahaa waxaa iyaduna macallimad noo ahayd macallimad miss block la dhihi jiray oo Florida ka timid marka shibisti markaan dhammaynay inta aanan shibisba ka bixin yani nasiibkan ka hadlaya wuxuu iska fursad ilaahay uun kugu soo aadiyo iyo reerkaa aad ka dhalato qoyskaas aad ka dhalatay iyo duruufaha markaa jira uun waxa nala geeyey annagoo dugsi qur-aanka beriga aan dhiganayna laftiisa yaa waxaa nala bari jiray naxwaha iyo qawaacidka iyo diinta oo wadaad la dhihi jiray allah u naxariistay sheekh xuseen cadde yaa naloo geeyey annagoo 5 wiil ah oo macallinkaynu macallin maxamuud maxamed cali allah u naxariistay isaguna waa dhintay yaa meeshaa nala geeyey oo aan nala bari jiray qur-aankii iyo maxay ahayto naxwihii iyo diinta sideeda kaleeto inteeda kale kadib waxaan galnay oo aan u gudbay dugsigii haddii alla ku roon yahay Scuola Media Centrale la dhihi jiray oo cidaadiyada ah isaguna sidoo kale macallimiin runtii aad yaab u leh yaan meesha kala kulannay oo ay maxamed rashaad allah u naxariistee sheekhii oromaha ahaa iyo shuyuukh kaloo soomaaliyeed oo cumar cali sow iyo wadaado badan oo runtii iyaguna halkaa wax badan naga baray kadib waxaan u wareegay haddii alla ku roon yahay Scuola 15 May oo aan ahayn kuwii ugu horreeyey oo meesha lagu furaba runtii 15 May isaguna runtii wuxuu ahaa dugsi aan wax badan ka barannay oo waa kan macallimiintii runtii aan wax badan ka bartay macallimiintayda waxaa ka mid ah ustaad nuurudiin faarax iyo macallimiin kale oo badan oo halkaa iyaguna na soo barbaariyey kadibna waa tii haddee shaqada qarankaa la geli jiray oo hadhowtaanba ka hadli doonaa waxyaabaha qaarkood laakiin xalanaan galnay xalana kadibna waxaan aadnay la fuule anigu marka hore infact waxa laygu qoray kiimikada maxaa yeelay buundooyinka markii la yidhaahdo darajadii iskuulka sare looga soo baxayo chemistrygan waxaan haystay 50 ay ku saxaayeen marka 50 laftooda 50 keenay marka chemical industry inaan barto laakiin uma dhuunduleelin oo runtii ma ahayn inkastoo chemistryda aan jeclahay runtii ilaa haddana aan jeclahay marka waxaan galnay kadib waxaan galay haddii alla ku roon yahay oo runtii maalin dhaweeta ayaan ka sheegayay Faadumo Axmed Caalin Dr. Saureej yaa waxay ugu qortay la foole marka la foole kadibna waxaan meesha markaan ka soo baxnay waxaan macallin ka noqday 3 bilood ilaa 2 bilood iyo bar inay helaan filaya yaan waxaan macallin ka noqday dugsigii sare oo aan ka soo baxay 15 May laftiisa dugsiga intaanan ka tegin macallimiinta waaweynaa oo waxna soo bartay oo runtii aan wax badan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa isaguna Salaaman Gaal oo hadda maxay ahayto Somaliland guurtida madaxda ka ah marka adigu isku soo xoobi oo isku soo dar waxay noqonaysaa waxbarashadaasu reerkaasu iyo maxay ahayto ninka walaalkay ah oo markii hore horta seeska hore u dhigay iyo intii aad sheegtay oo hooyaday allah u naxariistay yaa waxay ahayd islaan runtii afgaaban dhinaca kalena sheekooyin iyo gabayo maxay ahayto noo sheegta iyo aabbahay laftiisa oo degaankaasi Yaaqshiid looga yaqiin nin maxay ahayto sheekooyinka caruurta u sheega oo maxay ahayto waxbara marka yaan waxba ku dheeraan
runtii waxay ahayd nasiib wanaag waktigu iyo reerkii markaa ilaahay iga dhaliyey iyo maxay ahayto degaankii laftiisa oo si aad ah ii saacida halkaasay horta waxbarashadayda iyo korriimadaydi iyo aasaaskii hore halkaasuu ka imaanaya maxamedow. professore aad u mahadsan tahay. laba arrimood ama laba casharaan ka baranaynaa noloshaadii hore iyo meeshaad ka soo bilowday. kow, aqrisku yaraanta faa'iidada uu leeyahay qofka noloshiisa dambe, wax walba uu noqdaba aakhirka dambe waxa marka dambe sheebgarayn doona inay tahay taas. cilmiguna meeshaas in laga soo bilaabayo. waxaan arkayay qaar ka mid a mutacalimiinta South Africa oo la weydiinayo gabdho ku jiraan wax qora novels qora oo la leeyahay xagee ka soo bilowdeen qoraalka, oo ku doodaya si sax ah gurigii ayaan ka soo bilownay markii aan yarayno carruurta ahayn 2 jir 4 jir aan carruurtu markay marayso yaysan wixii fahmin, laakiin in loo aqriyo buugaagta oo la tuso loogu celceliyo yaysan waxba ka fahmin. marka sidaasay marka dambe ay qoraalka ku jeclaanayaan iyo inay dad wax qoran noqdaan oo wax aqriyaan. marka taas aniga laftirkayga waa kaala mid ahay. waagii aan yaraa carruurta aan ahaa, abtigay oo ka shaqayn jiray markii waddanku sii burburayay safaaradda Maraykanka ayaa guriga la iman jiray journaalkii People la oran jiray iyo Newsweek iyo Time. fahan maanan u lahayn, laakiin bog walba ayaan aqrin jiray oon fiirin jiray waxa ku qoran. iska eeg marka sii jeclaaday mar walba inaan un arko ama yaanan aan aqriyo, laakiin wixii ma fahmayo, laakiin inaan marba mar ka dambeeyo bugaagta ilaa waddanku burburay. anisa hadda qadka nagula jirta early on waxaan ahayn dad isku meel wax ku aqrista inta dagaaladu waddanka ka socdeen. jaraa'idka waddanka ka soo bixi jiray iyo bugaagtii waagii aad ii dirtay aad baaraysay oo Soomaaliya ka soo baxay markii la burburay, bugaagtii sheekooyinka jacaylka ah ee tirada badnaa, qaar badan oo ka midana maanta meel aan lagu hayn oon u malaynayo inay yaalaan laga soo heli karo Library of the Congress Maraykanka inay wax uun ku kaydiyeen waayada 90-maadkii ayaa jira. marka tan akhriska waa mid muhiim ah qof walba oo Soomaali ah in ilmaha lagu baraarujiyo markay yar yihiin in akhriska lagu bilaabo. tan labaadna waxay ahayd laga baranayo noloshaada inaad maadada maanta aad ku takhasustay inaadan ama maadooyinka kala duwan inay ka duwanay tii adigu aad jeclayd oo chemistry-ga ahayd. anigu laftirkayga waxaan jeclaa inaan geographer noqdo, ma jeclayn history iyo anthropology political science waxa. marka tan kalena waxay tahay macallimiintaadi laftirkooda. Nuurudiin Faarax wuxuu laftirkiisu qoraa uu mar walba ku celceliyaa in hooyadii ay abwaanad ahayd sida hooyadaa oo kale oo ay buraanburaysay wax tirinaysay sugaan ah, taa inuu ka soo qaaday dhaxal. marka sidoo kale macallinkaadii kale Saleemaan Gaal laftirkiisa, Saleemaan Maxamuud Aadan, waxaan arkay inuu qoray taariikhdii Radio Muqdisho, inuu buug ka qoray, buug yaroo yar oo yaalo Sawas. wuxuu soo laabtay sida buugga ku qoran 64 ayuu dal ku soo noqday soo bartay taariikhda, bachelors ka soo qaatay jaamacad ku taala waqooyiga Ingiriiska. marka meeshaas ka soo bilaabay, kadibna macallimiintiinii ahaa, kadibna dee waa wasiir noqday siyaasadda ugu galay. marka halkaasaan horay uga sii wadi doonaa. marka waxaad nagu waxaan ku darayaa Maxamed kaama dhex galay may wasaxan tahay soo wad. waxaan kuugu darayaa maktabadihii berigaa jiray annagu markaan joognay oo ay ka mid ahayd tii Kamaaludiin maalan oo safaaraddii Masaaridu ay lahayd Jubba agteeda ah, oo ay ka mid ahayd tii Maraykanka, oo ay ka mid ahayd tii Ingiriisiga, oo ay ka mid ahayd tii Ruushka. yani waxaa jiray maktabado aad u badan oo dadku ay tegi jireen. nasiib wanaaguna waa tii haddaayto aan ka hadlayo joornaaladan Masar ka soo baxa oo aakhir saaca iyo iyaguna subscription aan ku lahaan jirnay oo iyo Time-ka iyo Newsweek aad sheegtay. marka waxaan tegi jirnay Courage del Sud meel la yiraahdo berigaa la dhihi jiray oo Courage del Sud yaan buugaagtaas iyo joornaalada iyo ka soo qaadin jirnay. waxa laakiin iyaduna muhiim ah meesha deegaanka waataan ka hadlayo
يعني soomaalidu berigaa siday isugu tiirsaneed oo canuga la arko in uu wax baranayo dad aan xataa maxay ahayto qaraabadaa hoose aan ahayn yaa kuu soo gurmanaya waxaan marka xusuustaa wallaahi nin ka shaqayn jiray axmed dhagaweynaa la dhihi jiray oo reer laascaanood ah yaa wuxuu ka shaqayn jiray safaaradda ingiriisiga meesha qunsuliyadda ahayd martiina areadiyo ninkaasaa wuxuu ii keeni jiray economistaha maaragta journaalka the economist iyo joornaallo kaleeto iyo buugaa kaleeto yaa usbuuciyan maadaamaan daris ahayn iyo wuxuu yiri warniyahow adaa wiil yahow adaa akhriska jecele bal kuwaanna akhri marka waxay kuu sheegaysaa qofku waatan la yiraa it takes a village in canug ay koriyaan yani deegaan dhan yaa maxay ahayto ku abaal gashanaya marka abaalkaasoo dhan yaa naga dhex guuxaya moogta waa sax waa mahadsantaha professor xilligaas waa dee saan dareemayno waa xilligii cold warku meel adag u marayay wadankuna quwadaha waaweyn ay ku tartamayeen not only armiga la keenayay hubka iyo siyaasadda waxay ku tartamayeen intellectual grabbing inay dadka kala hantaan ardaydii bixaysay mutacalimkii wadanka yani inay investigareystaan intellectualka dalka berri hogaamin lahaa marka masar dooray dheelaysay ruushku dooray ciyaaraya iyo wadamada barigaba iyo china ku dar iyo poland iyo meelo kamid ah galbeedku saasoo kale dooru ciyaaraya maraykanka ingiriiska faransiiska marka maxaa la jeclaa oo la aqrin jiray maxaa dominant ahaa dadku waxay aqrinayaan maxay ahaayeen ama ay rabeen ama wadanka yaalaba ay ahayd lagu qasbanaa in la aqriyo intaasoo kaliya runta ahayd marka aad fiiriso maxaa yeelay waa sidaad sheegto dowlad kastaahi oo markaa joogtay iyo kuwa hadda jooga laftooda kulligood waxay runtii dadka siin jireen buugaagta maxay ahayto ideolojiyadooda fidisa oo dhinacna dacaayadooda fidinaysa laakiin dacaayaddu waa kala jirtaayo buugaagta maalan sheekooyinka novelska la yiraahdo oo safaaraddii ingiriisiga iyo safaaraddii maraykanka iyo tii kamaaludiin masaaridu ay keeni jireen laakiin iyagu laftoodu marka aad si fiican u fiiriso qolooyinkan raashkana waa tegi jiray oo ruush ma ahayn soviet unionka ay ahayn berigaan oo iskooli media central dhabarkiisa yay xafiis ku lahaayeen marka buugaagtan ka soo amaahan jirnay oo weliba khaasatan kuwa hanti wadaagga iyo ka hadla waa berigaas yaan ka soo amaahan jirnay dowlad kastaahi runtii yani midda waxay la tahay in la ogaado ay muhiim tahay waxaan ardada meeshaan waxaan u sheegaa waxaan la yiraahdo altruismku saa uma sii jiro runta markaad fiiriso oo cidda wax ku siisa waxay kaa sugaysaa wax un kaa soo noqda aakhirka dambe lianna waa investment lagu gelinayo oo hadhowta investmentgoodii interest weliba lagaa qaadayo waxaan ku yiraahdaa marka xoolaha neefka aad kobcinayso uma kobcinaysid iska kobciyo keliya laakiin waxaad rabtaa caanihiisa iyo hilibkiisa aakhirka dambe oo ay wax kaa soo gelayaan marka siyaasaddu runtii waxay ahayd waa runta cold warki ummadahani ka wada dhaxeeyey oo mid kastaaba ay islahayd in aad qabsato fakirka iyo maanka iyo maal awalka ummadahani caalamka saddexaad ah weliba oo annaguna aan ka tirsanayn sidaad ogtahay maxamedow qolooyinkan maxay hayto cadam alinxiyaaz kuwa la dhihi jiray oo non alignedka ilaa iyo xad ay ahaayeen oo ay hormuud u ahaayeen maxay hayto axmed sukaarnihi indonesia jamaal cabdinaasir kawami inkaruma tiituhii lafteeda bros tito oo yugoslavia berigaa joogay marka labada quwadood ee warsaw iyo nato iyagu marka waxay ku hardamayeen in kudladaas dhexdhexaadka sheegatay in dadkoodu iyagu ay soo raacaan si marka aad dadkaa u soo jiidato waxay ahayd ama in aad ku sasabto dhaqaale ama aqoon ama maxay ahayto minxooyin iyo scholarship ama filimo la keena laftooda oo filimaadka beriga meesha la keenayay ay ka tarjumayeen
danaha iyo maxay hayto interestka dowladahaasi oo berigaa jiray. waa sax professor aad u mahadsan tahay. waxaan u soo degdegaynaa marka sidii markii dambe aad ku gashay tertiary educationka ama tacliinta sare. marka Soomaaliya oo xorriyad noqotay post colonial period gashay, challenge-yada ugu waaweyn ee qabsaday waxay ahaayeen sida ummadda loo dhaqaayo, qaabka ummadda loo dhaqaayo, sida loo sugayo cadaaladda, nidaamka cadaaladda, sida ummadda khayraadkeeda si siman loogu qaybinayo. waana waxyaabihii fashalka badan uu ka yimi oo burburkana horseeday. marka see ku tagtay jaamacadda Soomaaliya ama ku gashay cagaha kula heshay iyadoo ay jireen xilliyadaas cabasho badan oo ku aadan inaan imtixaanada loo qaadayn si cadaaladeed, in waxa af Soomaali dadku ay u bixiyeen ayagoo Ingiriisiyeeyay ay leeyihiin grammation oo kale, oo erey Ingiriisi maaha laakiin waa erey Soomaalidu samaysatay oo ilaa yaraantaydii carruurnimadayda hooyadii aan ka maqli jiray waxaas waa grammation, xagga grammation erey soo noqday ah. title book in laga dhigana u baahnaa oo la dirso oo wax laga qoro, wax dhaawacayo qarannimadeennii, jiritaankeedii iyo Soomaali horumarkeedii ilaa iyo maanta xataa hortaagan in Soomaaliya Afrika ay ka dhex muuqato sida gumaysigu saadaaliyey. dadka kan oo dad cadaaladeed noqda, dadka kan oo qaraabaysiga ka baxa, dadka kan oo qabiilka iyo qabyaaladan ay isku gacan siinayaan ka baxay, wax walba merit lagu sameeyo, inay Afrika number 1 ka noqon lahayd Soomaalida dhinac walba. marka graduationkaas bal saad uga gudubtay ama challenge-ga ka qabsaday ama wixii aad la kulantay inaad bal cagta la hesho waad jaamacadda gasho, bal taano macnay ayada oo aan macallinna ka noqdo. ma horta waa runta, laakiin duruufuhu niyahow haddii aad fiiriso Ustaad Maxamed, waxaa jiray xishood ilaa iyo xad ah beriga annagu aan ka soo baxaynay dugsiyaal maaragtay, laannu waxaan ku soo aadaynaa gacaanka laftiisa oo maxay ahayto in jil baa jirta oo dadku waa jilbaysan yihiin, ilaa iyo xad carcartanaa jira oo maxay ahayto wanaag iyo ilaa iyo xad laga hadlaayo. runtii waataan ku lahaa chemistryga markii laygu dhigayay waxay uun fiiriyeen buundadii aan ku keenay chemistryga. kadibna runtii waxaan kaaga tegay oo hadhowta malaha aan ku noqon doono, berigii xalana aan galnay yaa waxa dhacday, waxaan ahayn qoloon la yidhaha Calishiine oo runtii aad u badan. marka waxaan meesha ka aasaasay anigu waa xalana gudihiisa guddigii dhallinyarada maxay ahayto ardayda. waxaan markaa haddana soo nooleeyey beriga aniga iyo dad kaleeto dabcan joornaal la dhihi jiray oo meesha ka soo bixi jiray, laakiin markii dambe dadku iska dhaafeen, codka xalane la yidhaha. xalane marka wuxuu noqday meel runtii waxaan xusuustaa waa meesha aan isku barannay Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto, waa meesha aan isku barannay Maxamed Cali Samatar, waa meesha aan isku barannay Xuseen Kulmiye, yacni dadkii berigaa madaxda ahaa halkaasaan isku barannay. maxaa yeelay meesha markay yimaadaan ama wufuudda ay keenaan yaan waxaan ahaa guddoomiyihii guddiga. marka taa lafteeda waxaan isleeyahay ilaa iyo xad waxay ku siinaysay visibility oo maarata lagu arko in aad waxoogaa meeshii aad jirto oo aad waxoogaa ka nasiib roonaato dadkii kaleeto, laannu dadku yani dadkii markaa jiray yaa ku arkay. waxaa dhacday marka xalane markii aan ka soo baxnay oo shaqada qaranka waatan la aado. shaqada qaranka anigu waxaa la ii diray meel la yidhaahdo Jaaxan oo Eelbuur agtiisa ah oo ay deganaayeen, yani waa abaartii daba dheer 24,000 oo Soomaaliya oo u badnaa inta badan gobolka Galgaduud beriga la dhihi jiray laga keenay. meeshii marka anigu waxa lagaga dhigay guddoomiye, waxaan ahaa runtii ardayga keliya oo xeryahaasoo dhan meel ah guddoomiye looga dhigo. oo meeshaasi marka waxaan xusuustaa guddoomiyaha gobolka wuxuu ahaa Allah u naxariistay nin la yiraahdo Yuusuf Ibraahim Cali Aburaas.
madaxweynaha marka meesha imaan jiray xeradii marka dadkiina waa joogaan oo waxaan rajaynayaa dadkana dhegeysanaya inay ku jiraan laftooda qaar xeradaa lafteeda waxay gashay kaalinta koobaad xeryihii Soomaaliya ka dhisnaa oo dhan marka waxaan xusuustaa madaxweynuhu intuu meesha yimaado maalin isaga oo la socda madaxweynihii xogayihii guud ee xisbiga Bulgaariya ee shuuciyiinta ahaa yaa wuxuu ku yiri wiilka gabanka ah yaa meeshan madaxweyne ka ah kii Bulgaarka wuxuu yiri that's impossible markaas waa kan possibility waa tan yani madaxweynuhu uu leeyahay waxa aan soo saarnay fikirkii dadkan bedelnay oo meel aan u duunay uu leeyahay marka dhibaatooyin runtii caqabado gelista jaamacadda markaad la yiraahdo waxoogaa cadaaladaha jirtay oo jaamacaduhuna hadee waa badnaayeen oo waa kan kacaanku jaamacado badan sameeyey marka dadku waa la kala meelaynayay meesha dhibaatadu ay ka dhacda waxay ahayd oo waxbarashada markaan ka hadlayno la foole markaan dhiganay yaa waxaan ka ahaa runtii la foole xogayihii ideolojiyada ee ardada la foole haddana waxaa jiray joornaal la yiraahdo baraha oo ardaydu ay soo saari jirtay aniga marka waxaan ka noqday tafatiraha guud aniga iyo runtii nin Allah u naxariista Nuurudiin la dhihi jiray oo reer Hargeysa ahaa oo kadibna mar allaba markaan ka soo baxnay isagu wuxuu aaday Soodafo ku biiray berigaasi waan halkaas ku dhintay Allah u naxariisto laakiin ana tafatiraha guud runtii ka ahaa waxa marka dhacday jaamacaddu la foole markii la yiraahdo aniga iyo nin kale annagoo tirsanan filaya yaa ugu buunda sareeyay waxa marka dhacday sheekadan haddaad xasuusisay Maxamedow oo haddaad idlisay moogtahay waa reflection waa arrin fiican waa moogtahay marka waxa dhacday waxa hormuud ka ahaa nin la yiraahdo Maxamed Cilmi Bulaale Allah u naxariistay Maxamed Cilmi Bulaale marka oo Mareykan California ku dhintay wuxuu ahaa wadaadkii ninkii qabay maxay hayto professor oo doctoressa Aamina Xaaji Aadan oo professor ka ah California marka wax xusuustaa maalinnan u tagay hadda ima yaqaan inta badan laakiin wuxuu arkaa anoo gudoomiyay ideolojiyada anoo journaalkii la ordaya waxaan ku iri waxaan rabay Bulaalow inaan maxay hayto kula hadlo wuxuu yiri habeen waa xusuustaa 8 habeennimo xafiiska ugu imo xafiiskan ugu tagay yani ajaayibaadka rabbigay waxaan ku iri niyahow anigu buundadii u sarreysana waa haystaa oo laygama koreeyo laakiin qabiil aan ku tashanayo oo qabiil ahaana kacaankuna waa kan qabiilkii duugay anigu ma jiro marka waxaan kaa rabaayo keliya wixii aan xaqa u leeyahay in la isiiyo wuxuu yiri maxaad rabtaa waxaan iri jaamacadda inaan macallin ka noqdo maadaama aan xaq u leeyahay wuxuu yiri ka seexo dhinaca kale meeshii jeexantii aan ka hadlay yaan iyaduna waxaan isku soo barannay Cabdiraxmaan Caydiid Allah u naxariistee oo gudoomiyaha jaamacadda ahaan jiray oo markii dambana isaguna Ethiopia soo dafgalay halkaa ku dhintay marka Cabdiraxmaan isagu Caydiid wuxuu ahaa nin ishtiraakiya oo maxay hayto progressive runtii waxa waan xasuustaa wuxuu yiri maalintan tuulaagan ka hadlay markaasuu yiri Russiaad ka timid oo Moscow ka timid markaasuu ku yiri maya xalanan ka soo baxan ku yiri markaasuu yiri markaad xamar ku soo noqoto aan isaragno marka Cabdiraxmaan oo gudoomiyihii ah iyo Maxamed Cilmi Bulaale oo runtii cadaalad wax ku wada liis wuxuu soo diray 14 anaa number 1 ah liiskii markii la soo gudbiyay yani waxaan kaaga hadlayaa dhibaatooyinka caqabadaha halkaas ay ka imaanaysa waa sax liiskii markii la soo gudbiyay waa kan wixii waxa loo gudbinayaa jaamacaddu waxay u gudbinaysaa waxbarashadii
wasaaradda waxbarashada waxa marka isu imaan jiray gudoomiyaha jaamacadda hormuudka la fuule labada wasiir tacliinta sare iyo waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenada iyo maxay hayto wakiilka xisbiga ee jaamacadda halkaasaa la isugu yimid marka intii ay taa maqnayd yaan waxaan bilownay in aan wax ka qorno buuggii madaxweynuhu uu qoray oo falsafadii kacaanka soomaaliyeed la dhihi jiray aniga iyo ninaan saaxiib nahay oo cali nuur maxamed la yiraa oo hadda professor ka ah abudabi yaan waxaan bilownay inaan tarjumno oo af ingiriisi aan u tarjumno berigaas marka buugga already waa qornaa miya markaa soomaaliya ku qoraa ma la hayaa koobigii ma dhumay intuu ku dambeeyey niyaha hadda waxyaabo badan oo dagaaladii baase sokeeye u dhumay liannu maktabad aan lahaa rag badanaa og oo doctor xuseen wadaad iyo oo aan daris ahayn yani maktabadaha ugu waaweyn xamar yaan runtii halkaa ka sameeyey guriga waxay noqdeen yani hadda dhib ka weynaa meeshii yimid ila kaftamaya beri wuxuu yiri professorow buugaagtaadiyo sonkorta iyo lagu duubto yaan soo arkay yiri moogta marka yaan warkaa kugu dheerayne waxaa marka magacyadii waxa loo gudbiyey wasaaradda waxbarashada iyo tii tacliinta sare 14 waa la qaatay anaa layga tegay hadda anaa number 1 aha ogow oo meeshii layga tegay saaxiibkii cali nuur waa la qaatay qolooyinkii kale waa la qaatay marka waxay ila noqotay waxyaab markaana madaxtooyadan dhex fadhiya akhrikan dambe waa markii dambe odagaa isku fiicnaateen odagaan isku fiicnaanayno madaxtooyada aan joogaba moogtahay marka waxaa dhacday oo sheekadaa waxay ahayd nin runtii aan aad u jeclahay oo maxamed xaashi cigaal la yidhaah oo 15 maynaan isla dhigan jirnay runtii nin akhyaar inta anigu aan ka ogahay yaa wuxuu ahaa wakiilka xisbiga ee jaamacadda maxamed ayaa la marsiin kari waay oo yiri ninkan waa kacandiid marka jaamacadna laguma qorayo waxa markaa fadhiya Saleeman Gaab waa ka wali waa nool yihiin iyagoo dhanba oo la wareysan karaa Saleemana marka wuxuu yiri hadda kacandiid see ku noqonaya ninkaanu maadaama madaxtooyada joogo bilad sharafna ku soo qaatay maxay hayto jaaxan adigu maxamed wuxuu yiri iska ilow ninkaan maya markii la ii sheegay runtii halkaasaan ka xanaaqay waa xusuustaa galab waxaan macallin u ahaan jiray dhalinyarada 9 dhalinyaro ah oo gudaha madaxtooyada ku jirta oo madaxweyne Allah u naxariista safarada u raaca yana fingri marka waxaan dhigi jiray 4 ilaa 6 galabnimo markaan ka soo baxay yaan waxaan nin la dhihi jiray aadan koronto oo maxay hayto madax u ahaa isaga iyo maxay hayto nin kaleeto oo akhyaar runtii marka aadana waxaan ku yiri waxaan rabaa ballanna ma lihin madaxweynaha laakiin waxaan rabaa inaan madaxweynaha arko waan areesnahay way aragi madaxweynuhu u tagay wuxuu yiri soo daa odoga Allah u naxariisto wuxuu fariisan jiray geedka hoostiisa meel yar oo geed ah halkaas u tagay waxaan wadaa balad jaahan baladaan miiska u saaray moogta markaasaan waxaan ku yiri tan waa soo celiyey maantaana igu dambaysa inaan soo galo madaxtooyada bila Soomaaliya wuxuu yiri Allah u naxariisto wallahi nin akhyaara wuxuu yiri maxaa dhacay waxaan yiri waxa la igu tilmaamay inaan kacandiid ahay marka haddaan kacandiid ahay ehelba uma noqon karo meeshan intuu istaagay oo wuxuu yiri inakay waa jardiinada madaxtooyada ku taala bila Soomaaliya wuxuu yiri waa soo dhex marayna sheekadii marka adigu yani idinku celinay sheekadii aan u sheegay
madaxweynuhu wuxuu yiri garabkuma iga haysta wuxuu yiri oo mee qolooyinka wasiirada ah haddii maxamed uu saa yiri waxay iyagu kuu daafici kari waayeen on the basis buundadaadii iyo waxaagii iyo aqoontaadii moogtahay ilaahay amarkii afkayga wuxuu ka soo yeeriyey waxaan ku yiri companyo ii dhihi jir ilaah ku naxariisto companyo maxamed lagama baqin adaa lagaa baqan ku yiri adigaa lagaaga baqay ma aha arrintu maxamed waa xusuustaa gacantu intuu iga qaaday wuxuu yiri ilaah ku naxariisto wuxuu yiri William inaad madaxtooyada soo gasho oo aan sheekaysanayno macnaheeda maaha inaad caay karto waxaan ku yiri xaasha lilah laakiin runtan sheegay waa soo noqonnay adigu yaan war idinku daalin wuxuu yiri meeshii kursigaan ku soo noqonnay geedka hoostiisa markaasuu wuxuu yiri iska ilow jaamacadda wixii hadda ka bilowdo laxdadan waxaad noqonaysaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha waxbarashada wallaahi waa xusta xafiiskaagana waa kayga agtiisa waxaan ku iri companyo anigu kuguma imaan inaad meel ii magacowdo taa ha ii dambayso horta xaqayga halaysiiyo wuxuu yiri laakiin haddii aad meeshii tagtana weli was qabanaysaan soo maha maxamed waxaan ku iri hadda waa inay xaq iyo waatan cadaaladii hadaayto aad ka hadlaysay iyo gartu inay moogtahay shuruud ay jiraan dadka kala saara wuxuu yiri waa runta yani maxamed siyaad cajiib u ahaa runtii wuxuu yiri ord iska tag berigaa marka waxaan deganahay biilla baydhabo oo guddiga qoraalka madaxweynahana waa ku jiraa oo anaa guddoomiye u ah maalin duhur ah yaa waxaa telefoonkaas soo yeeray maxamed xaashi cigaale u ahaa maxamedaa marka wuxuu yiri warneehu birito waxaad iigu timaadaa xafiisku marka waa azaan jaamacadda beriga hore qofkii yaqaana waa meeshii shabeelle u dhoweyd oo dhabarkeeda ahayd adigu subaxdiiaan u weymid waa xusuustaa 4 saac ma ahayd maaqan subaxnimo 10kii waa soo fadhiista waxaa la fadhiyey oo weli inuu nool yahan fila allaha dhaafo kolley nin la yiraahdo allahu almustacaan oo isagana iskuulka aan isla dhiga jirna niyahow oo joornaalkii halgan madax ka ahaan jira cabdi shire cabdiqaadir shire waa kaas reer london oo xamar wareegay cabdiqaadir shire waa kaas marka cabdiqaadir la fadhiyey markaan imid adigu xoogaa markaan sheekaysanay cabdiqaadir waa iska tagay cigaala marka wuxuu yiri yani waxaan ka hadlayaa xishoodka berigaa jiraan ka hadlayaa moogta ogow hadda waataan lahaa yani duruufuhu waa kala duwanaayeen marar badan xishoodka meesha jira oo maxamed oo lagu tirinaayo inuu aad ugu dhow yahay madaxweynaha marka dambena uuba ka dhigay wasiir ku-xigeen nacam oo dadkuna ay ka baqaan markaan isa soo hor fadhiisanno wuxuu yiri wallaahi waa xusuustaa iyo wuxuu yiri waniyahow maxaad odaga iigu dirtay oo odagaa si xun ii canaantay waxaan ku yiri weli waa nool yahay maxamed geeri kuma maqla allaha dhaafo waa nool yahay london waa nool yahay soo ma waxaan ku yiri maxamed afgabaadsiga sheekada intaad iska dhaafto wixii aad igu yeertay ii sheeg wuxuu yiri niyahow khalaas jaamacad baadaan kugu qoraynaa laannu si xunaa la ii canaantay isla maalinta wallahi waa xusuustaa yaa waxaa loo yeeray nin agaasimo ahaa oo cabdiqaadir dhicisow la yidhaha professor dhicisow yaa la yidhi warqaddii soo diyaari warqaddii uu soo diyaariyey waxaa guddoomiye kusimo ahaa beriga nin joogi jiray niyahow xanaanada xooluhu wuxuu ka ahaa hormuud maya muudayaa guddoomiye ah laakiin muuday wuxuu jiraa UCLA jaamacadduu jiraa gaani nin la yidhaha oo ma jirin gaaniya kusimo ah gaaniyaa u tagnay isla markii gaaniyaa soo saxiixay waxa marka aan sameeyaa waxay ahayd waxaan ka baqay
haddii warqaddii dib loogu celiyo wasaaraddii waxbarashada waxaan aqiin Salaaman Gaal Salaaman Maxamuud Aadan oo maxay ahayto in principalna ii noqday macallinna ii noqday oo runtii xaq ku dir ah oo aadan waxyaabo badan aadan dhaafsiin karin waxaan marka ka walwalay haddii warqaddii ay meeshaa tagto in Salaaman uu yiraahdo warukaadi ma annaga nagu ciyaaraysaan oo isaguna markaa diida moogtahay oo ay anigu igu noqoto markaa laba maroodiyo isdagaashay cawskii miskiinka ahaa dhexdooda ku dhiman lahaa waxa aan sameeyey berigaa marka iyaan war kugu daalin maxamedow waxaan soo qaaday warqaddii iyaan waxaan iri Cabdiqaadir Dhicisow iyo iyaga muxuu ahaa cigaal yaa waxaan ku iri warqadda aniga isiiya ii dhiiba warqaddan soo qaaday waxaan u geeyey nin aan qaraabo nahay oo saaxiibna aan nahay oo maxamed xaaji hundur la yiraah oo wasiirkii wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxay hayto in macdanta waana ninkii markii horeba jaamacadda markii lagu qoray horeejo ii geeyey maxamedaan marka waxaan ku iri miyahow warqaddan waata Salaaman waxaad dhacsiinaysaa haddii aad rabto inaad cigaal la dagaasho gooni ula dagaal laakiin ninkan miskiinka iska sii daa marka yaa war kugu daalin saas ayaa jaamacaddii la igu soo qoray marka waxaan iri la foolihiiba waa ka baxay kulliyadda luqadahu markaa la asaasayay yaa waxaa kulliyaddaasi in la igu qoro marka laba waxba maxamedow cadaaladdu halkaasaad horta ka arkaysaa oo ninkii lagu tirinayay inuu yahay wiil uu adeer u yahay maxamed siyaad oo runtii markii dambe aniga iga baqay yani xishoodka meesha jira oo hadhowtina aan ka sheekayn karno taasoo keliya maaha waxyaabo badan oo runtii ayaa jira oo Soomaaliya berigaa jiray oo cajiiba tan labaad marka waxay kuu sheegaysaa waxay ahayd duruufahii markaa jiray in xataa markii wax lagu duudsiiyo haddii si uun laguu yaqiin aad helaysay meel aad ula ciirciirto marka sidaasay ahayd jaamacadda laygu soo qoray aada u mahadsantahay professor si qurux badan oo wanaagsan aad u dhigtay oo detailinna ah casharka u weyn oo lagala soo dhex baxayo waxay tahay mar walba positionka aad taagan tahay waxaa sheebgaraynaya structure of powerka meesha yaallo intaa isu jirtaan waana wax caadi oo haddaba lagaga sheekaysto lagaga doodo cilmi baarista African Studieska dhex taalla Afrika dariska la darsayo waayo de Afrika xukuunada jira maanta isku mid maaha waa kala duwan yihiin haddaan tusaale usoo qaadano Rwanda oo kale hadda cilmi baaraha Rwanda tagaya research garaynaya ee raba inuu cilmi baaro wax kasto iyo mawduuc kasta noqotaba dawladda xadidayso marka cilmi baaraha uu kaga dhow yahay dawladda ayaa cilmi baaristiisu waxay noqonaysaa mid more yani access u leh wax badan oo san kan kale access u yeelanayn to the extent ba hadda la gaaray in dawladda Rwanda ay diidan tahay ilaa hadda la soo taagan yahay mamnuucayso kuwa critiquereeya iyada oo dhaleela kuwa baara ama darsa Rwanda kuwooda ayaga dhaleecay xukunka meesha jooga maadaama uu soo dheeraaday Paul Kagame oo 27 sano marayo inaysan u ogoleen waddanka inay soo galaan oo viisayaal aysan soo siinin safaaradihii dibadda Rwanda laakiin kuwa dawladda u nacamleeya u guul wadeeya laakiin cilmi baaristooda dhinac kala wata la ogolaanayo inay waddankii soo galaan marka tan ku dar professor ustaad laakiin taasu waa dawladaha horumaray laftooda yay waa sax wixii ka soo horjeeda meeshan aan jooga lafteeda يعني qolooyinkii badnaa oo muxuu ahaa ninkii beriga dhaweeto oo Swiss-ka ahaa oo aad taqin oo jaamacadda Oxford macallinka ahaan jiray oo wadaadkii aqoon muslimiinta aasaasay awowgu u ahaa taariikh Ramadaan wakaas waa kii berigii isagoo raba halka inuu yimaado oo jaamacadda Notre Dame ay rabto islaantii ahayd wasiirka arrimaha dibadda beriga Clinton iyo qolooyinka kaleeto waatay u diideen
wax kalena ma ahayn lianna waxay ahayd fakarka iyo waxa uu qabo marka waxaan isleeyahay ustaad maxamedow kulli meel kastaaba dhinaca kale waxaad fiirinaysaa aan maraykanka imid maaragta UCLA yaan waxaan ku iri waxay ku fiican tahay meeshu runtii doodan inay socon karto oo dadka aad la doodi karto oo xorriyad ilaa iyo xad ah waa muqayad oo laakiin haddana ilaa iyo xad aad xor tahay ma ogtahay waxaan marka qolooyin anthropologistayaala waxaan ku iri war inta aad Soomaaliya iyo Afrika aad aadi lahaydeen UCLA agteedan waxaan ku arkaa waxyaabo badan oo dhibaataysan meeshan maad ka hadashaan mid yaa beri wuxuu ugu yiri waa runtaa laakiin agencieska fandgareeya lacag naguma siinayaan markaan gudahan ka hadlayno laakiin waa bannaanka inaan ka soo hadalno si aan u helno research grant wakaas marka waa wax ay dowladahoo dhan ka dhexeeyaan dhinaca kale ustaad waana kugu raacsanahay runtii liannu qof kastoo xataa wanaag sameeya haddii keli taliye uu yahay isuu leeyahay runtii liannu mushkiladda imaanaysaa waxay tahay qofkaasu maalintuu meesha ka baxo systemkoo dhan baa dumaya wax kastoo uu qabtuu la baxayaa la baxayaa eber khalaas ma ogtahay oo waxaad fiirinaysaa ilaa iyo xad xataa wanaag xataa markaad samaynayso yacniga anigu qolooyinkii u ololeynayay Paul Kagame ku jira marka hore waata madaxweyne Clinton uu lahaa new breed of democratic leaders ka soo baxay Afrika wakaas oo runtii aan arkay oo waliba marka aad fiiriso yani waxaad xisaabtaa haddii uusan isagu joogi lahayn nimankii ciilka qabay oo rabay inay aargoostaan oo waxyaabo badan oo xun iyay ku kici kari lahaayeen marka waxaan is iri ilaa iyo xad dhinaca kalena waxaad fiirinaysaa marka Rwanda aad fiiriso maanta runtii yani horukac weyna la sameeyey oo waxay noqonaysaa middle class mid ah mar aan dheerayn marka qolooyinkani kula murmaa meeshan markaan joogno Mareykanka waxaan kula murmaa waxa la yiraahdaa what's good for the goose is good for the gander yani adigu qolooyinkan ku yiraahdaa waxaad fiirinaysaa Singapore ninkii Lee Kuan Yew waa kii intaasoo sano haystay moogta intaasoo sano laakiin waxa wanaaga uu sameeyay waxay ahayd dictator ba noqdo in uu meeshii dhiso oo maanta ay tahay magaalada yar maxay ahayd Singapore caalamkoo dhan maxay ahayd in la tartamaysa marka waxa uu isleeyahay runtii aniga oo aan lahayn ila ma aha horta the end justifies the means na waa khalad waa sax oo aanu taa ma qabo haddaad tiraahdo danta laga gaarayo hadday sax tahay inta la dili kara ha la dilo iyaduna macquul ma laakiin waxaan isleeyahay kama dhex gala meel kastay ka taagan tahay arrintaasu oo dowladdu wixii ayan rabin in ay runtii ay ka hortagaan moogta